السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa laga wariyey imaam axmed uu ka wariyey min xadiisi ma arta caaisha radi allahu canha wa ardaaha mar ayaa wuxuu leey nabigu calayhi salaatu wasalaam jannada ayaan galay nimtu fara'aytuni fi ljanna jannada ayaan galay markaan seexday kadib markuu nabigu jannada galay calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu maqlay cod macaan oo macaan oo macaan qof qur'aanku akhrinayo weliba jannada dhex jooga allahu akbar yaa maqlaya xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu maqlayaa jannada dhexdeeda qof qur'aan ku akhrinayo cod macaan ayuu maqlay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nabigu wuxuu yidhi waa ayo qofkaa jannada qur'aanka u dhex akhrinaya yaa waaye markaasaa waxaa lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa saxaabiga la yidhaahdo xaarithata bnu nucmaan allahu akbar jannaduu ka dhex maqlaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasi ma dhiman weliba waa asxaabtii badar ku shahiiday buu ka mid ahaa calayhi afdal salaatu wasalaam nabigeena ayaa markaasi maqlaya oo ka sheekeynaya waxa uu yidhi nabigu uu sii raaciyey kadaka albir kadaka albir kadaka albir baarinimo waa taas baarinimo taasaa lagaa dhahaa baarinimada aad jannada ku gashay uu saxaabigaasi uu janno ku mutaystay oo weliba isagoo baashaalayo oo barwaaqaysan uu cod macaan ku qanaayadaynayo qur'aanka jannada dhexdiisa baarinimo iyo gobonimo baarinimo wax lagu hela taasaa lagaa dhaha buri nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa marka inaan ku tiraa macaawa adiga baari baad sheegataa anna baari baan sheegtaa isna baari buu sheegtaa baarinimada uu saxaabigaasi jannada ku galan caawa taa taaban doonaa maxay tahay se baarinimada adiga aad sheegato ma $100 dirtaa ma $1,000 dirtaa ma aragtay gurigaad seexataa ma xilliga ood ku timaadaa ma inaad hooyinta ku hashaad haa dhaxdaa ma aaba inaad mataqaanaa xoogaa la saaxiibtaa baarinimadaada adigu waa maxay baarinimada laakiin saxaabigaasi lagu tilmaamay uu jannada ku galay maxay ahayd 3 arrimood baan kusoo koobaya saxaabigaasi radia allahu canhu ardaah xaarithata ibnu nucmaan baarinimada uu jannada ku galay waxaa la yidhi kow xaaritha wuxuu ahaa hooyadii mid madaxa u shalneeya allahu akbar duq waaye ciragooyirtu maanta dhan kala hagaya ma aragtay saliiduu marinaya gambaduu dhuujinaya garbasaartuu xiraya saliidiiba ugu shubaya hooyadiiba madaxa u hagaajin jiray allahu akbar adigoo hooyadaa weligaa madax ma u hagaajisay inaad u hagaajisay iska daa weligaa ma ka dhunkatay mise qofka ugu fiican baa qofka saaluunka geeye ah ama bunkuyariga geeye ah ama markay ku tiraahda maan dhowkaana madaxa ii qaba marka madaxa u qabta ah laakiin saxaabigaasi asaga ayaa gacmihiisa intuu madaxa saaro ayuu madaxa u hagaajin jiray ma taqaanaa markaad hooyadaa madaxa u hagaajinayso tawaaduca aad helayso ma taqaanaa sacaadada iyo habriska aad dareemayso mase taqaanaa ducada xagga hooye kaaga imanaysa allahu akbar saxaabigaasi hooyadiis ayuu madaxa u hagaajin jiray waa baarnimada uu jannada ku galay mid ka mid ah wuxuu kaluu caan ku ahaa baa la yidhi hooyadii ayuu cuntada u karin jiray وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله إله بكو داهي ادعي او ده إلهي هو يدي إي آبهي او نحريسو والدك او نحريسو إلهي سيدا أنيقا مركا يرا إي تربيين جرين سلمد أذيقا مركا آد يريد ويكو كولين جرين راشين كأفكو كولين جرين انتي كو ديارين جرين أذيقا باهي كو هيسو أي مارتهي إيضا باهي أي هيسو قاجع هيسو أي أذي إسكا هرمارين جرين ادعي بكل إله سبحانه وتعالى سحابي قاسي هو يدي انتو اقلو جكا ayuu isaga cuntada u soo sameyn jiray adigu weligaa ma tiro hooyo maanta ana cunto ku sameynaya ma tiro aaba maanta adiga horeel iyo restaurant lagu ma geynayo aniga gacanteeda kugu dharjinayo oo cunto macaan iyo alaab intaad u kala tuurtad u soo adeegtay ma tiro caawa aniga invitation kana qaba oo casumaadina qaba gacanteeda ku quudanaya ma tiro warkayga qaaliga walaashay weligaa sida ma sameeysa hadaadan sameynin $1,000 dirtay $500 dirtay baarnimo lama yiraahdo baarnimada gacanta loola tagaaye biyo sacbada looga dhargaayo waalidkaada sacbada intiisa dunida ka tagin xayaaka allah wabayaak saxaabigaas wuxuu ahaa hooyadii wuxuu ahaa mid gacantiisa cuntada ku kariya waxaan kusoo gabagabeynayaa oo ta saddexaada uu caan ku ahaa innagana maanta kulligan aynu ku wada jirnaa waxay ahayd saxaabigaasi hooyadii markay la hadasho ay ku tirahda ama hooya waxaa ii keen muusan ku oran jirin ereygaa iigu soo celi maan maqlin muusan oran jirin yaa markay erey ku tirahda xataa hadduusan maqlin intuu banaanka u buuxo ayuu wuxuu oran jiray asxaabta kale hooyaday maxay tiri ii sheega buu oran jiray wuxuu ka xishoon jiray inuu dhaho kelmadda hooya mar labaad iigu soo celi wuu ka xishoon jiray wuu ka haybaysan jiray adigana caawa adigoon bal lagugu yeeraynin mataqaanaa cunto ii kariba aan lagu lahayn adigoon lagu lahayn buuro ii soo jabi adigoon lagu lahayn mataqaanaa geedo soo go adoon lagu lahayn ayaa hooyada iyo aabaha ku oran jireen wiilkaygii oo salaada u kac gabadheedii kac
هبل عبد الله نا حمد سعدية فرحية والله قولها حد يدقي سنيسا أيقنا الصحابة سنوحي أهايين أريقا أي كلها بيسن برلبات كل عريجة أوسو نقون جرن أديقنا إمي سجر بيت لغا هذا كل عن هوي أبو كويريا أو وليبا أدقونا عد إسنابيسو أما الصلاة لغو يريو أما عنتا أي كوكرسي كل ذا كالي يقول كي عنتا داعون كالي قبل إذا عنتا داعون أذن أتشوابين ma waxaad doonaysaa dhaga adaygaas inaad ku sheekato baarnimo walaalkayga qaaliga walaashidii ma dhaga adaygaasaad rabta inaad caawa ku soo furaysa jannada adigoo baarnimo sheeganayo oo weliba aad ku doonaysaa awlaadda aad dhashayn in adiga baarnimo aad macnaha aad ka sugto haddii xaalku uu saayahay walaalkayga wax iska bedel dembi weyn baad ku dhacday uga waacisiyaan waa macaasi in aad waalidkaada caa ku noqoto waa min alkabaa'ir waa dunuubta waaweyn bay ku jirtaa ilaahay subxana wa taala waa isaga dhahaya wacbudu allah ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلهي عابد وكلك اسكحر وشركين والد كادنا بارئ النق الله أكبر ميسن أحين أبا اللع هو إذا أي آبها وإنت كبسو إكيسي إن آذن عاور لحلن إن آذن أسبوعا مغلن إن آذن شلي مغلن إن آذن بشن وعن بل إن آذن كورحين ميل كبرين واقعد لنا وليدنا آذن معاملة وناكسن إيا دقن ورسا آذن بقولات دق من با ميسان كوكو أحين عيب إن الدنيا دا جوكت أدقوا شعور تاسي إي كاد نحبعدو ورالك إسكار ولا شيء إسكار حدا جنة دونيسو وجنة الدنيا أدونيسو جنة آخر أدونيسو والد كذا وناكسن وحياك الله بياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.